hawlaha arlada hadii lagu aamino ummadda uu sabeeyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysi ehela sheego ay furan idinkuma arkaysi ila adeerto بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وناكسن داود الكسو دواada barnaamijka tixraaca wararka ee Sony TV oo aad ka daawataan xarunta TV oo kulliye magaalada Muqdisho barnaamijka daawada waxaan ku soo qaadanaa alaba xaaladaha siyaasadeed ee dalka maanta barnaamijku waxa marti ugu ah isla markaan aan kaga mahad celinayna ra'iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee dalka iyo wasiirka arrimaha gudaha ee dawladii kumeel gaarka ahayd Cabdullaahi Yuusuf Axmed hadan ah musharax madaxweyne ee Soomaaliya mudane ku soo dhawo barnaamijka tixraaca wararka Sony TV magacaygu waa Maxamed Mursal mahadsantahay Maxamed Mursal Sony TV assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh waad ku mahadsantahay inaad waqtigaada qayb naga siiso aan kaaga mahad celinaynaa muddo 15 sano ka maqnayd Soomaaliya hadda waxaad ku sugantahay Soomaaliya mal dareenkaaga ka waran in hadda aad ku soo aaday xilli dalka u dawaldegayo maalmihii xorriyadda dabcan 15 kaas aan ka maqnaa waxaan ka shaqeynayay arrimaha dibadda waxaan joogay Eritrea waxaan joogay ururka waxaan kamid ahaa dib u xoreynta waxaan kamid ahaa la talinta madaxweynaha Museveni iyo qaabka wadankan nabadgelyadiisa iyo horumarkiisa loo suubin doono siyaasadda arrimaha gudaha waa runta waxaan soo laabtay hadda dareenkayga waxa weeye inay jirto chance fiican ama ay taalo tallaabooyin oo wax ku ool ah oo ka duwan meesha hadda la marayo in kor loogu socdo oo Soomaali la gaarsiiyo inay la wareegto mas'uuliyadeeda cir iyo dhul iyo bad ciidankeeda la dhiso mushaarkeeda iyo soo celiso shaqaalihii dawladda in la badiyo in ganacsigii la hormariyo in Soomaaliya ay ka mid noqoto wadan isku filnaansho buuxo gaaro oo ma garanaysaa waxbarashadeedii nabadeedii gobolladeedii degmooyinkeedii ay maamul dawlad hoose helaan in la baahiyo maamulka oo la gaarsiiyo dekadaheeda inay wada shaqeeyaan in ma garanaysaa airportadeeda ay wada shaqeeyaan in jidad la isku furo in la soo celiyo adeega guud in cadaaladda iyo maxkamadihii la dhiso in muwaadinka Soomaaliyeed xuquuqdiisa oo ka helayo meel walba qof kasto muwaadin Soomaali ah in lala dagaalamo qabyaaladda in la hormariyo waxbarashada diinta in la hormariyo waxbarashada saynsiga iyo cilmiga lagu horumarinayo aqoonta iyo dawladnimada in la abuuro hay'ado iyo baysas ay shacabka Soomaaliyeed ka soo tarmaan civil war ay mareen iyo dawlad la'aantii muddada haysatay iyo nidaamkii rejiimka oo militariga ahaa in Soomaali hal cod iyo qof subsato in xisbiyaasha ay tartamaan in Soomaalida xor ay ku doorto madaxdeeda ilaa degmo ilaa tuulo ilaa gobol meeyaradeeda in gobolladii sidoo kale loo doorto gobornatoriyaashii in ma garanaysaa isku dhaca gobollada iyo dawladda dhexe meesha ka baxdo in ay amar ka qaataan dawladda dhexe dawlad goboleedyadana beeski dawladnimada ahna ay ma garanaysaa la shaqeeyaan dawladda dhexe in canshuurihii la soo celiyo in dhaqaalihii shacabka la soo celiyo in caafimaadkii la soo celiyo in waxbarashadii horumarinta dhalaanka hooyada iyo dhalaanka la hormariyo in horumarinta dumarka in waxbarashadooda iyo ka qayb qaadashada siyaasadda iyo qayb qaadashada ciidamada safiirada in guryihii Soomaaliya oo ku dayacan France iyo meel walba in loo helo dhaqaalihii lagu dayactir lahaa in mushaar buuxa loo helo ciidanka in mushaar buuxa shaqaalaha dawladda loo helo in loo helo ma garanaysaa bangiyada in ay siiyaan wax alaala wixii kaabis dhaqaale ah in bangiyada la kaabo in bangiga dhexe oo macroeconomics ama oo sheego futureka Soomaaliya meesha oo GNP-geeda iyo exportigeeda iyo importigeeda M1 M2-ga ay soo saaraan iyo M3-ga in Soomaaliya ay qayb buuxda ka noqoto adduunka horumarintiisa in kheyraadka ku yaal dhulka la soo saaro waxyaabahaas dhan waxay u baahan tahay gacmo wada jir ay ku qabtaan in aan ma garanaysaa isku tanasulno in aan siyaasadda hormarino oo ma garanaysaa wada hadalka hormarino in aan la dagaalano qabyaaladda musuqmaasuqa in aan sharciyada islaamka wadan muslimna ku dhaqanno ku dhaqideeda waxbarasho badan ay u baahan tahay
in qoriga Soomaali isku dilayo oo dhalinyarada iyo qaabka dawladda loo majaxaabinayo nidaamkeeda iyo iska horimaadka iyo nabadgelyo la'aanta iyo qaraxa iyo dilka ka socdo Soomaaliya meesha uu ka baxo arintaas marka waxay u baahan tahay dadaal badan qof kasto muwaadin Soomaali diasporada inay soo laabato wadankooda wax u qabtaan marka midaas waa mid aan raadinayo musharaxan inaan shacabka aan ku hormariyo ilaahay du yiraahdo waan gartay bal arinta Soomaaliland hadda eegno Soomaaliland dhawaan waxay u dawladda leeyahay 20 June wili waxay taagan tahay in qadiyada ah in Soomaaliya ka go'een 1990 bal arinta Soomaaliland sidee lagu soo celin karaa silaada waxaa lagu soo celin karaa siyaasaddaasna way noqotaa mid wada hadal ah maamulka waqooyi galbeed oo Somalilandii hore intii xorriyadda la qaadan ahaayeen laakiin hadda Soomaaliya ay walaalihii waqooyiga waagaas raggii yimid ay ahaayeen 6 June u yimaado walaalahood koonfureed calankaas ayaa naga wada dhaxeeyo maadaama ay Soomaali mid tahay hore u ahayd oo dadkii Somaliland ku nool ay kala shaqeeyeen midnimada Soomaaliya in lagu daydo halgankaas dheer ay wada galeen maadaama hal diin hal cod aan wada leenahay hal dhaqan maadaama aan kala maarmin Somaliland aqoonyahankeeda shaqaalaha ugu badan dawladda ka shaqeeya waa shaqaalaha ugu badan hay'adaha ma garanaysaa international oo shaqeynaya kamid yihiin taas waxay ku tusinay in walaalahood oo koonfur ay wali diyaar u yihiin inay walaalahood waqooyiga ay la fariistaan la hadlaan dabcan siyaasiyiinta wixii ay ku guuleysan in markaan la soo bandhigo waa maxay waqtiga wuxuu galeynaa waqti muhiim ah 2023 wixii ka horeeyo in la xaliyo arinta Somaliland oo meel fiican la dhigo waa ama Soomaali waqooyi galbeed in qofka muwaadinka oo calanka labisan oo waqooyi ku nool inuu xorriyad u leeyahay in walaalahood koonfureed oo la midoobi karo sida walaalahood waqooyiga shalay oo la midoobeen in aan qofka calanka Soomaaliya wata waqooyiga markuu joogo meel ka mid ah sida maalin loo weyto loo xirxiray inaan loo xirxirin in ay walaaltinimo iyo jaceyl iyo taariikh dheer oo dadka Somaliland wax garadkooda ku soo halgamay shalay walaalahood u yimid intaasna federaalka kamid ahayn Soomaali midnimadeeda in ay la dhowro xuquuqdaas waa madani waay in siyaasiyiinta waqooyi wixii horumar nabad ay ka suubiyeen 12 sano ama 15 sano nabadeen ka shaqeeyeen iyo dib u soo celinka qaranka waqooyiga ka shaqeeyeen in aan ku darno meesha marayna si horumarino qarankii waa naga wada dhaxeeya in koonfur kaliya calanka ku shaqeysato waqooyina ay ka baxdo saaxadda waa mid aan ma garanaysaa aan xaq ahayn marka annagana waxaana laga rabaa inaan wax kasto oo aan ku dooni karno walaalihiin aan ku qancin karno inaan helno waa gartay markaan waxaan eegaynaa dhinacii arrimaha doorashooyinka dalka artayda guud sida artaa jadwalka doorashada la soo saaray waayo-aragnimada aan leeyahay maadaama gudoomiyaha kamid ahaa shirkii Embagati lagu soo dhisay maamulkan federaalka wali waxaan u arkaa markaan qiimeeyay muddada gaaban aan joogay wadanka bishii 3 hadda ii dhamaatay waxaan u arkaa schedule-kan hadda ay soo saareen inuu ka fiican yahay kii hore oo 2 bilood ahayd dabcan kan naftigiisana haddaan dib u heshiisiinta Kismaayo iyo gada la suubin haddaan dib u heshiisiinta Beledweyne iyo Jowhar la suubin haddaan Muqdisho dib u heshiisiintii maalin weyto oo la bilaabay wasaaraha bilaabay haddaan laga miro dhalin haddaan dib u heshiisiintii mucaaradkii dawladda ay wada fariisan oo laga miro dhalin haddaan dib u heshiisiinta Galmudug oo hadda duulaan iyo dagaal ku soo cusboonaaday degmooyin kamid ah haddii aan dib u heshiisiinta Baye Bakool iyo Baraawe iyo zoonaha shabeellooyinka aan la xoojin haddaan xabad joojin lagu dhawaaqin oo la siixin inta qoriga haysato oo Soomaaliga qofka kale Soomaaliga qoriga ku dhimanayo iyo qaraxa aan la istaajin siyaasadda oo garab marta dib u heshiisiinta waxay keenaysaa mirihii inuu noqdo miro dhiman horumarkii noqdo horumar dhiman
guushi noqoto guul dhiman marka schedule-kan ay soo saareen hadda waxa weeye 3 bilood iyo xoogaa ilaa 4 bilood waay uma arko inay ku guuleysan karaan schedule-ka haddaysa ka fiirsan aysa helin makaaniyaadkii dhaqaalihii iyo waxgaradkii waaye aragga ahaa waa ka maqan yahay meesha in marka waxgaradkii guddiga dib u heshiisiinta guddiga nabadgelyada guddigii khilaaf raadinta guddigii anshaxa guddiyaal badanaa maqan marka aniga si aan u arko waa horumar ka fiican kii hore 27 laakiin ma dhamaystirna marka xaaladda wadankana weli ma degana marka arintaas oo dowlad la'aantana waa keenaysaa maxaa yeelay waxaan dhan waxa la rabay dowladda intay jirto in la qabto maadaama dib u dhacaas yimid dowladdiina Febraayo 8deeda ay ka baxday saaqada nidaamka lagu shaqeynayo waxa weeye waa nidaam oo is-afgarad ah is-afgaradkaas marka waa soo dhaweynaynaa waa is-afgarad siyaasadeed laakiin waxaa maqan makaaniyaadkii iyo diyaarintii wadanka in loo diyaariyo leadership ay u baahan tahay marka ra'iisul wasaaraha oo arintaas wado kaliya uma baahna muwaadin kasto Soomaaliya inuu garab ku siiyo in dowladdan ayadoo ognahay sida ay tahay ayadoo ognahay waqtigan dowlad la'aanta aan ku jirno oo waqtigeeda dhamaaday haddana waxaana laga rabaa in aan xabad joojinta la xoojiyo in degaamadii 12 degaan oo lagu heshiiyay in lagu diyaariyo waxay u baahan tahay makaaniyad badan waxay u baahan tahay security nabadgelyo u baahan tahay waxay u baahan tahay logistic aad u badan markaan fiiriyo guddigii doorashada oo 3 maalmood in laga soo saaray ahayd waxay ku qaadatay 1 bil ku dhawaad marka schedule-kan cusub waxaan u jeedaa in 4 bilood qorshayaasha la qoray oo aqalka sare aqalka hoose dib u heshiisiinta nabadgelyada iyo intaasoo degaan oo kala duwan macquul ma aha way aragnimada u leeyahay 4 bilood ay qabteen wali yani 4 bilood ee hadda la qabtay oo suurtagal ma ahayn marka ay doorashada ku dhacdo aniga ma qabi inay ku dhici karto waqtigaas way aragnimada u leeyahay wax badan ayaa maqan umana joodi talaabo oo firfircooni uguma jeedi xagga dawladda oo shirka inay qabato way aragnimadina ma laha waa cusub yihiin ra'iisul wasaaraha hore uma soo qaban dib u heshiisiin dawladda hore uma soo dhisin marka wax badan ka maqan marka waqti u baahan yahay in uu saxo waxa ka maqan oo raadiyo oo helo asaga naftigiisa in la qanciyo waa maxay la shaqadii wada shaqadiina ma haysto makaaniyaadki talooyinka ma haysto shaqadana ma aha wax fudud markaanaysa marka xagga internationalki ma u jeedo dhaqaaq ka socdo xagga Soomaalida uma jeedi sida annaga marka aan shirarka lagu yaqaan kaabayaal badan ay jira kaabayaashu waa ka maqan dhaqdhaqaaqan iyo waxyaabaha socon maasalaada halkee ka jira arintu ka socodsiinta waxay keenayo waqtigii iyo iskoorimaadkii iyo dib u heshiisiin la'aanta waa xogeed marka waxaan rabaa in waqti la qaato oo dib u heshiisiinta aad looga shaqeeyo la isku soo celiyo goboladii dawladdii dhexe iyo goboladii la isku soo celiyo mucaaradkii iyo dawladdii shakiya kala jiro is-aaminlaan badana jirto saraakiishii wali waa dagaalamayaan oo Jowhar waad aragtay sarkaalkii ugu sareeyay isagoo dhaawac waxa loo qaaday halkaas waa timaandhood lagu qarxiyay baabuur marka wali dhaqaaq waxa jiro kalsooni darra jirto wali waxa jiro cabasho kale ciidamadii Eritrea ku maqnaa oo la soo tababaray hooyooyinka waa banaan baxayaan wax badan la dejin oo jawaabo loo hayn marka waxa la rabaa waxyaabahaas waxa loo baahan yahay marka in la xalliyo oo dawladana firfircooni talaabooyin firfircooni inay muujiso uma jeedi wali talaabooyinkaas firfircooni inay jiraan waxa muddo 3 sano ku dhow askartii loo qaaday Eritrea la weysan marka waxa leedahay ilaa haddana madaxda dalka ugu sareeyo sida madaxweynaha kama uusan hadlin marka laga soo reebo ra'iisul wasaaraha oo soo saaray guddi arintaas baara bal aragtida guud sababta madaxweynaha ugu hadli weysan yahay muddo 3 sano ku dhow maxay kula tahay waxa loo baahan yahay dawladda inay ka jawaabto maxaa yeelay dawladdii hore oo ka horeysay ra'iisul wasaare Roble oo Xasan Khayre ayaa arintan gashay madaxweynahana wuxuu ka ahaa gudoomiyaha guud oo amniga asaga waay dalka arintaas marka muwaadiniinta iyo hooyooyinka iyo dadku waxay u baahan yihiin jawaab waafi ah oo degdeg ah in la soo afjaro arintaas dabcan dawladda Eritrea dawlad oo xagga Talyaaniga walaalo ka nahay waa geopoliticska waana dawlad Afrikaan ah
waana dowlad aan isku arkaan ka nahay isku meel ka nimid waxaa loo baahan yahay firfircooni loola hadlo loo diro wafdi sida guddigii oo ra'iisul wasaaraha u magacaabay guddigan si firfircoon Eritrea waa dhowdahay hal saacada loo soconaya haday u badato diyaarad 8 saacadood loo soconaya in laga dego lagana soo laabto maalin ama labo arintaasna la soo afjaro waa wax fudud laakiin fadhiya waa la aamusan yahay wax un baa hakada jiro hakadkaas in la saxo halkaasna waxaa sixi karo guddiga amniga oo madaxweynaha oo madax ka yahay in ay si firfircoon arinta Eritrea u galaan way haddaysa geli karina inay adduunyanaha kaashi weydiistaan UN-ka inay weydiistaan wadamada African Union inay iskaashi weydiistaan wadamada Arab League in dowladaha muhiimka Soomaaliya saaxiib la ah ay dhahan garab nagu siiyo arintan wax baa naga halaysan waalidkii iyo dowladdiina ma garanaysaa xal in loo helo iyo caruurtii iyo saraakiishii iyo ciidankii la soo tababaray haddii uu jiro tababarkaas waxaan rabnaa xal oo waara in laga helo marka arintaas madaxweynaha ayaa taliyaha ciidanka asaga waa arintan marka madaxweynaha ayaa loo baahan yahay inuu amar buuxa ka baxshiyo in uu tallaabo cadan ka qaado garab ra'iisul wasaaraha waa guddiga nabadgelyada qaranka uu ka tirsan yahay taliyaha ciidanka taliyaha booliiska taliyaha wasiirka arrimaha gudaha wasiirka amniga wasiirka gaashaandhigga wasiirka arrimaha dibadda intaba kaalin ayaa kaga furan in ay fariistaan inay ka soo saaraan xal oo aan jiitan lahayn in arinta la soo afjaro dabcan waa wax taariikhda Soomaaliya aan taariikhdeeda soo dhicin waa markii ugu horeysay arintan odayaasha dhaqanka iyo waalidiintii iyo waxgaradkii ugu yaboohay dowladda ciidankaas iyo dhalinyaradii volunteerka u noqotay waxaa dhalanayo shakiya dhalanayo dowladnimadii ay ka shakiyaan arintaas dhaawacaas weligeed ma dhicin waxaana ugu tacsiyeynaya arintaas inaysan mar dambe dhicin oo laga fiirsado dabcan Soomaali ciidan hadii la dhisayo in gudaha lagu dhisayo ugu fiican in ciidamada dibadda hadda ka hor la diray waqtiga Talyaaniga hadda ka hor la diray Ruushka wax weyn oo Soomaaliya ku soo zaaidiyeen ma jirin faragelinta ayaa badanayso marka ciidan saas tiradiisu la egyahay oo aad u ballaaran oo tiro ah in loo diro dowlad yar oo Eritrea aan awoodaas lahayn oo sabool ah ma qaban karto marka arintaas waxaan rabaa taladaas way dhacday inaan mar dambe lagu laaban oo Soomaali ay qorto waxay laga bartay arintaas wixii mar dambe aysan dhicin taariikhdii horena ma dhicin halka marna hadii dhacday waxaan rabnaa in aan soo afjarno oo arintaas mas'uuliyiintii wali dowladda waa ayaga wali ilaa xilka ma wareejin inay arintaas dowladda hadda jirto ay ra'iisul wasaaraha ay si fircooni ayaga ay guddi u dirin aan qaba aniga ayaga naftigooda hogaamiyaan oo dhoofaan u tagaan madaxweynaha Eritrea u tagaan dowladda Qatar oo qayb ka ahayd heshiiskaas in la baaro maxaa keenay 2 sano Soomaali qaybteedii ugu muhiimsaneed oo ugu tiro badneed inay maqan yihiin dhalinyaradii la waday ilaa haddana waalidka waxa iyo dadkana in jawaab fiican la siiyo oo ay ka soo jeedaan caruurtaas marka annagoo dhan ay waxay nagu tahay wax aan ka dhicin taariikhda Afrika waxaan ka dhicin taariikhda internationalka looga taariikhda human rightska ma ka dhicin marka arintaas waxay keeni kartaa in maxkamado caalamiga la isku furto waa arin yar maaha arintaas marka waxa la rabaa waxay keeni kartaa isku dhac siyaasadeed dowladahaas iyo annaga marka arintaasna annaga maadaama waqti kala guur ku jirno waxaan rabnaa in la soo afjaro qaramada midoobay waxay dhawaan soo sheegtay in qaar ka mid ah ciidamadii laga Eritrea ay ka qayb galeen dagaalkii Ethiopia gaar ahaan gobolka Tigray bal arintaas walaac ma ku abuuri karto waalidiinta Soomaaliyeed isla markaana awalba ka murugaysan caruurtooda dabcan arintaas waa arin qatarteeda leh waa arin cusub waay weligeed nagama dhicin marka waxaan rajaynaynaa maadaama dowladdii ra'iisul wasaarihii Roble oo guddigaas magacaabay madaxweynaha uu joogo hay'adihii amnigana ay joogaan oo wiilashaas qaaday markii hore ra'iisul wasaarihii horena uu joogo oo maxaa la yiraahdaa Khayre iyo wasiiradii hore ka qayb qaatay hawshaas waxaan jeclahay in arintaas ay la kaashadaan United Nationska reportka ay keeneen in ay dhahan garab hana lagu siiyo waxaan warbixin ka qaataa xaaladii aan gudaha ka maqnaashay 10 sano in aan buuxsado waxaan la hadlaa musharaxiinta baarlamaanka waxaan la hadlaa musharaxiinta sanadka waxaan qayb ka qaataa qaybaha bulshada oo ku kulmaayo hoteelada lagu marti qaadaa
waxaan siiyaa qaybteeda nabadeynta Soomaaliya waxaan qayb ka ahay la taliya markaan waqti aan firaaqo leeyahay waxaan ku bixiyaa familiga maalinta Jimcada aan qaabilaa wixii familiga ah oo ehelka ah guriga ah waxaan suubiyaa exercise 2 saacadood maalin walba dabcan nin ciidan aan ahaan jiray marka inaan tababarkayga iyo jirkayga iyo aan suubiyo waxaan akhristaa ekonomiyada waa akhriya meesha xalka marayo cudurka covid meesha uu marayo waa akhristaa waxaan shirarka adduunka ka dhacayo iyo hay'adaha adduunka iyo aqoonta ballaaran ee internetka ka buuxdo research aan ku suubiyaa waxaan waqti badan siiyaa in aan magaalada Muqdisho aan arko qaybaheeda kala duwan sidee tahay jidadka sidee yihiin dhibaatada ka haysato xagga jidadka biyaha engineer aan ahay dabcan Talyaani ku soo bartay geometry xamran ahaa marka waxaan fiiriyaa infrastructure-ka Soomaaliya si uu liito magaalada madaxda sida loo horumarin karo nabadgelyada sida ay daraasad badan aan ka wadaa sida sababta nabadgelyada u horumari weysay waxaan daraasad ku suubiyaa saraakiisha qaranka kuwa akademiyada Soomaaliya kuwa kale aan marin garaadaha tirada badan la siiyay isku dhacso u keeni karo waxaan dhageystaa darajada oo zaa'idka la bixinayo waqtigan oo kala guurka ah oo dawladda waqtigeeda dhamaaday dhibaatada ay keeni karto dawladda soo socota daraasadan ku suubiyaa garaadahan tirada badan oo la bixinayo saraakiishan oo ka badan ciidanka 9,000 waa ila tahay booliiskii xogaa sida ay taliyaasha booliiska ay sheegeen darajada ay qabaan saraakiisha aad u badan ciidanka marka sidii loo maamulaya haddii saraakiisha bato dhaqaalaha halkee loo keenaya ciidanka soo amar u kala qaadana isku socodka ciidanka qaab badan naga hadlaysan marka arimahaas ciidankii haddana isku dhac badan ka jiro dhexdiisa oo amar iska kala qaadanin rag ciidan ah iyo rag kale ciidan ah dagaal ku fulinayo goboladii waa dayaciin iyo degmooyinkii waa caruurtii haweenkii waa lagu baabi'inaya miino badan la gelinayaa dhulka Soomaaliya oo ma garanaysaa nimankan dhalinyarada gelinayaan dhibaatada miinadaas geysan karto nin aad u soo tababarteenahay miinadaas halkee ka imaanaysa miinada Soomaaliya Geneva geey sidee miinadan ku soo gashay daraasadan ku wada waqtiga markaan hayo yaaway wadamada soo gelinayo yaaway wax in Soomaaliga dilayo maxaa loo dilayaa maxaa dadka gobolada ku nool oo masaakiinta iyo xoolo dhaqatada loo baabiina maxaa nabadgelyada Soomaaliya ee u sii xumaanaysa iyadoo 40,000 oo ajnabi uu joogo bad iyo ciri dhul 3 bilyan lagu bixinayo maxay isku soo tari laadahay maxaa xildhibaankii maanta la leeyahay nus milyan loogu bixinaa corruptionkii waa batay fasahaadkii waa batay islaamnimadii hoose u dhacday dilkii nafta qofka muwaadinka Soomaaliyeed waa sii kordhaya waxaan tagay isbitaalka Digfeer dhaawacii oo magansa wisil caruurtii iyo haweenkii sidii loo burburiyay miinadii qof walba lugiisa jajaban yahay oo barlaysta laga wada dhigay colaadan halkee ka socota marka arimahaas oo dhan daraasadan ku wadaa maadaama aan waayaraganahay maadaama siyaasadda wax ka soo shaqeeyay waqtiga aniga muddadii aan joogay 2006 wixii ka horeeyay qarax ma jirin Soomaaliya dilaayo ma jirin Soomaaliya dilaayo oo levelkaas ah ma jirin ajnabi tiro badan wadanka ma joogin marka arimahaas oo dhan waxyaabaha aan ka fikiro ka shaqeynayo xalkooda sidii loo helaa aan waqti badan ku bixiyaa ilaahay anoo la kaashanayo anoo culimada la kaashanayo dhalinyarada haweenka waa dhageystaa dhalinyarada tirada badan oo digriga haystaan oo shaqo la'aanta ah si shaqadii loo kordhin karaa sidee ganacsiga qaabku hadda u shaqeynayo musasaxa ganacsatada waa la hadlaa korontada nimanka hayo shirkadaha korontada madaxdooda waa la hadlaa marka waqti badan aan ku bixiyaa inaan daraasad ka suubiyo si aan u fahmo xalkooda maadaama aan ahay engineer soo dhisay wadamo badan ka soo shaqeeyay wadamada ugu waaweyn oo westiga wax ku soo bartay dawladda hoose ka soo shaqeeyay ciidanka dibadda ka soo shaqeeyay security-ga maxaa Soomaaliya hoos ugu socotaa kor u imaan lahayd waxa u baahan tahay research badan iyo dhageysi badan iyo xog raadis badan janamadii hore oo retire-ka booliiskan wadaada aan la hadlaa waxaan garanay talooyinkan ka dhageystaa warbixintan ka dhageystaa kuwa militariga culumada waa ka dhageystaa marka intaas waqti badan ku bixiyaa هذا ما سنتهي كسنوعها حسين محمد فارح عيديد رئيس الوزراء كحوينكي هوري iyo wasiirkii arrimaha gudaha ee dawladda ku meel gaarka ah Cabdullaahi Yuusuf oo martin uga barnaamijka tixraaca wararka ee SMNews TV
barnaamijka waxaad inla socodsiinay daawadayaal anigoo ah maxamed axmed mursal dhinaca kaamirada wuxuu ahaa saaxiibkay cabdulle muuse xasan intaa dib u kulmi doona daawadayaal barnaamijkan mid lamid ah sidaas nabadgelyo waan kaga mahad celinayaa xuseen cidiid faarax wareysiga iyo waqtigiisa qaaliganisi waa maasanta mudan جزاكم الله خير الله معصر howlaha arlada hadii lagugu aamino ummadda uu sabeegiyo adeega laga dhigo ay furan idinkuma arkaysid ehela sheego ay furan idinkuma arkaysid ina adeerko